لبجر أي مدة الصومالية كودورة الدرجة القصر السيدلقة أو مدحوينه ما أنت هلقسي صومالي وقتك ويسعسي waayo intii aad xilka haysay in badan ayay ummaddu ku tiri talada dhulka dhig ka shaqeey midnimada wada jirka iyo inaad Soomaali isku hayso laakiin waa dhageysan weyn inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasiray waxay ku tahay guul siyaasadeed waxaad noqonaysaa hogaamiyihii ugu horreeyay abid ee taariikhda qirta fashilkiisa mudana madaxweyne noqo hogaamiye suurtageliya waxaan suurtagal ahayn oo iskaga tagay xilka si shacabka Soomaaliyeed loogu doorto oo baarlamaanka ugu doortaan madax karti leh oo ka sabata bixisa xaaladaha uu dalku ku sugan yahay cakiran مسؤوليته ugu weyn ee ku saareed waxay ahayd badqabka dalkaaga iyo dadkaaga mana jirto maanta meel Soomaali u badqabta oo waad ogtihiin ugu dambeyntii waxaan doonaynaa inaan u dirno guddoonka baarlamaanka baaq ku aadan xildhibaan Xabiib oo ayaamahan xasaanadiisa uu leeyahay waan ka tuurayaa xilka sida aan ognahay ummadda Soomaaliyeed xildhibaan Xabiib waxa uu habeen iyo maalin bay sutaagay inuu ummadda Soomaaliyeed u bandhigo musuqmaasuq ay samayso xukuumaddu taas waxay sababtay inay u adkaysan waayaan oo ay dhahan xukunka ayaanu ka ridanaa sharciyan oo ma leh baarlamaan weynaha ayaa iska leh mudana guddoomiye haddii aad ku dhaqdo arrintaas xilkaaga ayaad ku waayi doontaa waana mahadsantihiin